السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن أصحابتنا ميركستو أدجوكتان كسو دواذا برنامج كيني عيارها وحانو كويجي دونا قضاء الدورة وكسابسان دونيدا كوبادا عكتا هديان نقو عصوب تاي داودا فلان سبسكرايب نوصارسين الشيء قري ساحي بديننا اللو ذاق الدمان تيمبا آنو كوبلوني توبرا قحدة توتنامي أنتوني كنت أيوا دوني صحيحي دقويركا وعيارة جلسيا رمال لوكاكو inta lagu jiro suuqa xagaaga sida ay sheegayaan wararku xidiga reer Belgium ayaa ku dhibaatooday kooxda Chelsea tan ilaa markii uu ku soo laabtay xagaagi isagoo dhaliyay kale 8 gool 26 kulan oo uu ciyaaray Premier League. Lukaku ayaa u muuqda mid mar kale isaga tagay Chelsea inta lagu jiro suuqa xagaagan isagoo maamulka Bulls u sheegay inuu doonayo inuu ku laabto Inter Milan. Si kastaba haatee sida laga soo xigtay Calcio Mercato tababaraha Tottenham Conte ayaa doonaya inuu xidiga ku siiyo Premier League. Lukaku iyo Conte على حرير فيعان iyagoo ka soo wada shaqeeyay Inter Milan xilli ciyaareedkii hore isla markaana qaab ciyaareed fiican ka soo saaray xidiga. Wararka ayaa sheegay inuu Conte uu doonayo inuu isaga rab ciyaarsiiyo Lukaku iyo Harry Kane xilli ciyaareedka dambe. Dhinaca kale wadahadalada Chelsea iyo xidiga kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa dardar sameeyay 24 saac la soo dhaafay sida ay sheegayaan wararku. Xidiga 25 jirkan ayaa isaga tagay doona Camp Nou marka uu dhaco heshiiskiisa Barcelona toddobaadka dambe isagoo aan wax heshiis kordhin ah la gaarin kooxda ilaa haatan. Xavi ayaa weli doonaya inuu sii haysto xidiga reer Faransi laakiin dhibaatada dhaqaale ee kooxda ku jirto ayaa ka hor istaagaysa inay heshiis cusub ka saxiixato xidiga. Haatan sida laga soo xigtay Talk Sport Chelsea ayaa horumar ka sameysay wadahadalada ay kula jirto Dembele iyadoo kooxda Thomas Tuchel uu haatan u cadcadiyay saxiixa xidiga. Chelsea ayaa doonaysa inay xidiga ka dhigto saxiixa uu horeeyay ee milkiilaha cusub ee kooxda. Tuchel ayaa si fiican u garanaya Dembele maadaama ay ka soo wada shaqeeyeen kooxda Borussia Dortmund ka hor inta uu xidiga reer Faransi ku biirin Barcelona. Isla Mohamed Salah ayaa ballanqaad ku aadan suuqa kala iibsi uu gacan geliyay kooxda kubadda cagta Barcelona sida ay sheegayaan wararku. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Mohamed Salah ayaa heshiiskiisa garoonka Anfield wuxuu ku eegayay xagaaga soo socda sida ay daawacday jasiiradda The Mirror. Mohamed Salah ayaa kooxda reer Spain ee Barcelona u sheegay inuu dhaqaaqi karo garoonka Camp Nou sanadka 2023. xidiga xulka qaranka Masar ayaa kooxda Liverpool sii joogi doona xagaagan laakiin qandaraaskiisu wuxuu dhacay 12 bilood kadib weli ma saxiixin heshiis cusub. Waxaa la fahamsan yahay in xidiga kooxda radiis ee Mohamed Salah uu ku wargeliyay inuu u wareegayo Barcelona sanadka 2013. isla kooxda Real Madrid ayaa si toos ah u beenisay wararka sheegay inay xiiso u qabaan saxiixa xidiga Paul Pogba kaas oo qaab xur ah ugu tagay Manchester United. Manchester United ayaa dhawaan xaqiijisay inuu xidiga reer France qaab xur ah ugu tagay doono Old Trafford marka uu dhaco heshiiskiisa toddobaadkan. Xidiga 29 jirkan ayaa lala xiriirinayay kooxda Juventus halka uu sidoo kale xiiso ka helay kooxda PSG kuwaas oo doonaya saxiixiisa. Saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegay in ay Real Madrid si lama filaan ah u dhaqaaqayso Paul Pogba isla markaana dalab ka gudbiyeen saxiixiisa laakiin sida laga soo xigtay wararka ka imaanaya dalka Spain Real Madrid ayaa wax xiiso u qabin saxiixa xidiga reer France waqti xaadir. Sidoo kale kooxda difaacanaysa Champions League ayaa wax dalab ah ka gudbin saxiixa xidiga iyadoo ku kalsoon xidiga khadka ee ay haatan haysato. isla weeraryahanka kooxda AS Roma ee Tammy Abraham ayaa xaqiijiyay inuu ku soo wajahayo kooxda Liverpool inta lagu jiro suuqa xagaaga. xidiga 24 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ku soo qaatay kooxda AS Roma xilli ciyaareedkii hore isagoo dhaliyay 27 gool afar kalena caawi ka noqday tartamada oo dhan. Tammy Abraham ayaa kaliya xagaagii hore 34.5 milyan ugu biiray kooxda Roma laakiin waxa uu durba doonaya inuu ku laabto horyaalka Premier League. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi